السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبك الصوماليات ميل كستو دونيدا جوجتان يحيلي كستو جوجتان يحالات كستو كجرتان با وانا نسو سلامية ما تفرحات فرا بدن بييتاي waxaan ku faraxsanahay cadawgeeni baa inoo marxaati furay dawladda Kenya ayaa maanta marxaatiga inoo furtay caad marxaatigana waxa ugu fiican kow cadawgaagu ku furo Soomaaliya wax badan bay ka hadlaysay faragelin lagu hayo waxay ka hadlaysay in jiro dad Soomaaliyeed oo dalal kala u shaqeeya internal enemy ee sheegi jirtay shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasto joogaanba way ka hadlayeen wayna sheegayeen maanta waxa cadaatay Kenya tiri waxaan haysanaa marxaatiyaal Soomaali ah oo badayada marxaati ka ah waana wada garanayna waa kuwii aan sheegi jirno كل ورجيسك دستا مقالة نيروبي كسبب حويه ورجيسك أيا وحصو قري إن دولة كينيا أي حتى كده ريسو إن أي هيسو evidence أو كأدن إن قار كميدا ماركتي دد صومالي إن يرى هذا يس وارون كينيا إسكالي بد أيا إسكالي I mean tell us no well إليهن مركان نحورك ورجيسك أخسيت حيليهن وحن هيسنا مرقاتيال عدينيسو oo Soomaaliya ka soo jeedo in badda ay leedahay Kenya aysan Soomaaliya wax dhibac yarna aysan ku lahayn sidaas darteed waxaan rabnaa inaan soo bandhigno marqaatiyaashaas laakiin aaladda Zoom ee aaga waxa fog meesha Zoom shirka uu ka dhaci doono waxay leeyihiin waxa qatar gali doontaa nabadgelyada dadkan Soomaaliyeed oo Kenya u marag furi doono oo dhihi doono macnaha Soomaaliya ma lahan dhulkaas soo waxay qatar gelin doontaa amnigooda sidaas darteed waxa wali muuqata ay leeyihiin in ka qaybgalka shirka Zoom ay wali nagu adag tahay waana wada garanayna waa kuwii aan sheegi jirno marxaataan haysanaa bay tiri laakiin marxaatiyaashaas waxa suuragal ah inay marxaatiga dib uga noqdaan oo ka baqaan dadkoodii Soomaaliyeed iyo wadankoodii Soomaaliyeed inay cabsi ka gasho oo marxaatiga sidii loogu talagalay aynay u sheegin baa suuragal ah waa marxaati Soomaaliya marka Soomaali waa loo tashanay laakiin meesha loogu tashado Ilaahay baa joogay oo ka badbaadiyay dadkii u tashanay wax badan baan sheegaynoo ka hadlaynay war daba dhilif Soomaaliyeed baa jiro dalka loo shaqeynay madaxweynaheenu uu sheegay gacan kale ay nagu jirto uu daba dhilif ummad kale ay nagu jirto dad kale oo aan Soomaali ahayn laakiin ay Soomaali u shaqeynayso oo dalkeena horumarkiisa iyo systemkeenu inuu shaqeeyo iyo dawladnimadeena iyo qarankeena iyo ciideena iyo calankeena ay dhibaysaa jira maanta soo baxeen maanta wixii lagu hadlayaa ma garanayo waxaan leeyahay war nimankii dambigaas kale way joogaan laakiin anigu personal dambiga waan kala qaadaya ninka Sheekh Shariif la yiraahdo aqoon darra u geysay dambigaas isaga aqoon darra u geyso biyo madow la iibinayo u qaatay badan hadii la iibiyana wax dhibaato kama imanayso islaha marka isaga dambigiisu ka yiri waayo aqoonta faraha badan la marahayn amba aqli fara badan ma uusan ahayn biyo uu buu haystaa ee iska qaadanayso Kenya qoladii sidii burburkii markii dalkan warlordsku ka talinayeen sidii wax loo iibinayay buu soo gaaray marka wuxuu lahaa una iibis isaguna inta wuxuu ka dayay dhaqaale ayuu uga jeeday laakiin consequence ay keenayso ma uusan garanayn Ali Mahdi baa la mid ah ninkii sunta ku aasay dalka la mid ah boqolaal kala la mid ah kaasi dambigiisu ka yaryahay kii kabarka leeg ninka kabarka leeg ee Dubai jooga ee prime minister ka dambiilaha ugu weyn waa ninkaas iyo ninkii badda saxay ragay Kenya sheegaysana waa kuwaas haday kuwa kala soo baxaan iyaga sheegi doona iyaga ayaa sheegi doona marka kuleelku gaaro ee leeyahay badii Soomaali baale iyaga ay noo cadeyn doona kuwii kale la shaqeynayay cadawgii kale ee la shaqeynayay daba dhilifyadii la shaqeynayay dhaqaalaha ka qaatay kulleba iyaga ayaa noo cadeyn doona laakiin inaga Ilaahay baa inoo iftiimiyay diinka baalka la diin bay yiraahdaan skoofurta dadku diin baalka diinka la yiraahdo qolof ma lahayn baa leeyahay laakiin qambaarka u sheego waa lagu tashanay markaasuu qambaaro meesha qambaarku waa shimir dusha duuduusho meelaha geeda fadhida qambaarka u sheego diino waa lagu tashanay wuxuu halka lagu tashanay Ilaahay muuna joogay uu joogay qolof baa dusha laga saaray diinka lama cuni karo waa niga arkay marka halkii Soomaali loogu tashanay Ilaahayna uu joogay
marka ilaahay baa inaga kofar gareeyay cid kasto cadowtinimo inala soo doonatay kofar baan helay ilaahay baa inaga ilaaliyay ilaahay baana maada iskale ta kale niman kale waan mudaharaadka sheegayaan maxay u jeedaan marka leena waa mudaharaadayna ma Soomaaliya dhamaataan maxaa looga jeedaa idan mudaharaadkii hore waxa u jeedaa inay wax boobaan oo wax dhacaan oo wax burburiyaan oo dalkan chaos ka dhaco oo amar meesha aan dawladda ka jirin oo nin walba wuxuu doono sameeyo oo nin walba gurigu rabo galo oo nin walba daaro calaamad iska galo sidaas ay doonayaan inay boobaan oo meesha boob si ay u bilaabaan waayo iyaga u sheeg karaya social media u sheeg karaya markay mudaharaadayaan yimaadaan dagirka daadsoon waxa uu sheegayaan kama duwan waxaan social media u sheegayaan dadkan ay soo saarayaan maxay u sheegayaan marka ay yimaadaan dagirka daadsoon wixii hore ka duwan bay u sheegayaan xumaantii iyo cadhadii iyo wixii farmaajo caydiisii wax ka badan bay sheegayaan ma inta imika sheegaan in ka badan bay sheegayaan anigu caqli fiican la muuqato in mudaharaad la sameeyo iyadoo laga baaqsan karo oo social media laga wada hadli karo iyadoo Soomaali dhibanayso oo habeen dharaarba dhibanayso oo u dhimanayso xanuunka fiday inay dibadda loo soo baxo amba la mudaharaado caqli fiican lama muuqato aniga waa laga baaqsan karaya mudaharaadka waa laga baaqsan karaya wax exceptional wax ka wanaagsan oo loo sheegayo wixii hore ay u sheegi jireen ma jiro haday meesha yimaadaan waa intaana inay idaacadaha uga sheegaan ayaa ku talin lahaa Soomaalida dad ba qaarkood baa naxay marka ay arkaan nin Soomaaliyeed oo filayeen oo ballaadhnaa oo xoog badan ama wuxuu doonay ahaado oo marka uu hadlo ay ka naxayaan inaan naxdaan maaha sababtoo ah qofka bili aadanka hadalkiisa lagu miisaama qofka miisaanku culayskiisa maaha aqliga iyo aqoonta ku jirto qofka hadalkiisa laga gartaa hadalku waa miisaanka qofka bili aadanka hadalka ku hadlay ayaa miisaana qof weyn oo ballaaran oo hadduu doono kabar leeg oo markuu hadlo ad ka naxaysaa jira wuxuu ku hadlayaa aad leedahay waxaan ilmo yar baa ka dhex hadlaaya ayaad soodhanaysaa jira waxaa jira ilmo yar oo marka uu hadla aad leedahay ma oday caaqilaa ka dhex hadlaaya marka waa nature waa bili aadanka ilaahay saasuu sameeyey nimanka riyoonaya madaxtinimada doonayana qofku bili aadanka intuuna riyoon waa inuu seexdo waa inaad seexato si aad u riyooto laakiin adoo soo jeeda haddaad riyooto waa cajiib waddankan madaxweyne farmaajo joogo qalbigii iyo laabtii Soomaaliyeed degay marka inaad isku dhibaataysaan amba dad u jijiidataan madax baa ka noqonaya Soomaaliya ma dhici karayso waddankan farmaajo intuu joogo ma hawaysan kartaa madaxtinimo waayo meel aad uga dhigantaan ma jirto 100 calaamadood buu leeyahay mid qurad u dhigantaan ma jirto marka inaad isdhibtaan oo laftiina dhibtaan umadana dhibtaan maaha dalkani inta madaxweyne joogo farmaajo joogo wax shaqo oo ka qabanaysaan ma jirto aad baan idin salaamaya Soomaali meel kasto dunida joogtaanba waan idin soo jiga Soomaaliyeed ee u jooga dadkeenu tilbiya dawladeena aan jacaylka ku dooranay iska jir dawladeena Soomaaliyeed ee u jooga dadkeenu tilbiya dawladeena aan jacaylka ku dooranay iska jir dawladeena derba ka horeeyo jafli qodax baa dhextaalo jiqooyo laga mabaxo rag baa hore ugu jaabe iska jir dawladeena kuwa jira kula jiro haddana kaasii jiro jirkana midabkaagalo cadowga ku jabinaye iska jir dawladeena kuwa jira
kula jiro haddana kaasii jiro jirkana midabkaagalo cadowga ku jabinaye iska jir dowladeena iska jir qaar baa jira jeelu qaba inaa qarankeenu jirin jalaafana nala rabo wanaagow jixinjixayne iska jir dowladeena iska jir qaar baa jira jeelu qaba inaan qarankeenu jirin jalaafana nala rabo wanaagow jixinjixayne iska jir dowladeena iska jir musuqu waa joorfal weynow jeebka lagu wada gurtaayo caruurtay jalinayaane iska jir dowladeena iska jir musuqu waa joorfal weynoo jeebka lagu wada gurtaayo dhaqaaluhu jabinayaale iska jir